دورا قبيل وحا رمية تذكر لك ترد البديهي وحو كينا يا مسق ماسق وحو كينا يا مسق ماسق إلا يسال بسنين هيا دغارو حلقا حتى waxaa jira degmooyin aan hoos imaanin si wada goboladii kale la kombeergareeyo notiskii reportkii la qoro loo diyaariyo madasha guud madaxweynayaasha iyo gudoomiyaha baarlamaanka iyo ra'iisul wasaaraha sidii la isugu iman lahaa oo markaa reportadii oo naga diyaaran dowlad goboleedyada iyo xamar iyo beledweyne iyo jowhar iyo Somaliland iyagana intaas marka la isugu keeno tabaana la qaato optionada marka waxay noqonaysaa in lala tabo hadii la yiri madasha weyn ee lagu qaban doono HBL lagu qaban doono high level consultation lagu qaban doono Turkiga hadii la yiri tabaana January la doorto ay soo baxdo hab lagu midaysan yahay oo la doortay kana lagu hawlgalo shaqadii hore galmudug ay ku midowday oo dastuur ku samaysato maamuladii hay-adihii dawliga dhamaystiratay maantay in loo fadhiyo ka qayb qaadashada muxuu ahaa siyaasadii iyo hadafkii iyo midnimadii ummadda Soomaaliyeed wixii ay ku heshiin lahayd oo ay ku midoobi lahayd oo Soomaaliya loo higsiga 2016 meeshii loo dhaqaaqay maanta ireegadu ay ka qayb qaataan anigana fursadan inaan ka soo qayb galo runtii aad aan ugu faraxsanahay marka arrintaas reegadu oo isku waxbayeynayna mar haddaan la heli karin qof iyo codkii xisbi in la isku doorto ma shaqaynayso أفكرت الكاربي وحنا عرقنا ما دام سيدي أنا وأنا قرنا ماشي اللغة أخية أنا لو سوداي وحنا رجعنا إن سيدي أنا وأنا قرنا إن أي أنتج دونته حروت الجود اللي اسمه جين دونه كم ترسيتي مقدشة دولة تشوكتون وهنا صومالي وفلين دونه صار رجعنا وحنا عركا إن الوحبة أركي يصير رسمي أنتج دونه لو جين دونه أركا كسر بحاء جبلة ذكالة أمام من جبلة ذكالة waxaan rajaynaynaa kale inaan aragti kale ku yeelan doono shirweynaha dambe ama ka saddexaad marka dambe gooyinka ama dadka la isku geyn doono in dana gaar ah looga faa'iideysto kooxda program ay sheegeen inay leedahay doorasho ku salaysan heer dowlad goboleed waxay sidoo kale soo bandhigeen faa'iidada ay leedahay waxaana ka mid ahaa dhaqaale badan ayay u baahan tahay waxaan maantay si sharaf leh aan ugu guuleysanay dowlad goboleedka galmudug in aan maanta codkeena dhiibano si sharaf leh si aan kalsooni u qabo xabigayga ayaan ku dhiibtay waxaana jeclahay codka aan dhiibtay inaan ku guuleysan doono ahayn ayay yeelanayaan bulshadu xuquuqdooda ayuu heerka ay isku waxay yareynaysaa waxay ku habboon heer ma jiro heer